madaarka magaalada Beledweyne waxaa ka soconaya dhismo ballaaran iyo shaqooyin aad u kala duwan oo arrin aad u wanaagsan marka si loo fiiriyo haddana dharbaaxa ku ah dadka muruqmaalka ah ee u dhashay gobolka Hiiraan sababtu waxa weeye marka aad fiiriso garoomada kale ee dalka inta badan shaqaalaha ka howlgala waxay u badan yihiin dad Soomaali ah ha noqdeen maamul ama xamaalato laakiin garoonka diyaaradaha Beledweyne sida waa ka duwan yahay tusaale marka aad ka dhoofayso garoonka ama aad soo degayso ugu horeyn dhaayahagu waxay qabanayaan dad ajaanib ah oo garoonka ka shaqaynaya kan xamaaligu waa ajnabi kan diyaaradda dejinaya waa ajnabi kan gaadiidka garoonka wada waa ajnabi kuwa ammaanka qaabilsan waa ajnabi inkastoo ammaanka garoonku uu aad uga wanaagsan yahay garoomo badan oo caalami ah haddana waa lama huraan in awoodda ugu badan ee garoonku ay yeeshaan ciidamada booliiska iyo hay-adda nabad sugidda Soomaaliya dhismaha garoonka oo ah tan ugu muhiimsan fikradiisu waxay ahayd fariin ka timid ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble rabbi naxariistii jannaha siiye qorshuhu wuxuu ahaa in la helo garoon tayo wanaagsan leh iyo in ugu yaraan 500 oo qof dad ka badan ay shaqooyin kala duwan ka helaan dhismaha madaarka ugaas Khaliif laakiin taasi ma muuqato ku darso dhismaha garoonka qandaraaskiisu waxa qaatay qaramada midoobay haddana hal qof oo Soomaali ah kuma arkaysid dhammaan dadka hawsha fulinaya waa wada ajaanib oo isugu jira cadaan iyo dad Afrikaan kala ah bal qiyaas inta qof ee Soomaali ah ee shaqooyinkaasi u baahan ama ay tahay inay ka faa'iideystaan su'aashu waxa weeye yey tahay in hawsha garoonka ay qabtaan mase waa in gurigaaga aad marti ka noqotaa